jacayl kastoo dhex mara laba qof waxa uu reebaa xasuus iyo sidoo kale in qofkaas wax badan uu xiiseeyo ruuxii ay kala tageen waaba haddii ay dhacdo. sida aan la wada socono dhammaanteena Esther Korlibaax iyo sidoo kale Ibraahin horaan waxay ahaayeen lamaanayaal aad isku jecel isla markaana uu ka dhaxeeyay xiriir jacayl. waxay wadaageen nolosha waxaana waqti ka hor ay ahaayeen kuwa dunida iska eegan jiray, laakiinse xaalka sidaas mar qura ayuu isku bedelay. maxaa yeelay khilaaf labadooda soo kala dhex galay ayaa waxa uu keenay in labadooda ay kala tagaan oo halkaas furiin u yimaado. Ibraahin sidaas ayuu kaga dhaqaaqay Esther, halka Estherna ay u jihaysatay horumarinta nafteeda iyo nolosheeda. tan iyo markii ay kala tageen Esther iyo sidoo kale Ibraahin waxay ahaayeen laba qof oo dadku badi ay islahaayeen way kala maarmi doonaan, laakiinse taas maysan dhicin. muddo kadib Ibraahin ayaa waxa uu soo booqday guriga ay ku nooshahay Esther Korlibaax, waxaana dadku badi ay leeyihiin laba arrin ayuu u yimid: in labadoodu ay noqdeen laba qof oo isku soo dhowaanaya isla markaana xiriirkooda dib ay u soo celi doonaan. laakiinse sheekada taas way ka duwan tahay, oo sababta ugu weyn oo Ibraahin uu u yimid xaafadda Esther waxay tahay inuu soo booqdo isla markaana uu soo arko gabadhiisa. waxaa jira sidoo kale muuqaal si wadajira labadoodu ay isaga soo duubeen iyo gabadhooda muuqaalka ku soo dhaxaysa oo la soo dhigay barta TikTok oo ay isticmaasho Esther Korlibaax. dadka badina laba arrin ayay u fasirteen durba. dadka qaar waxay yiraahdeen waa isku soo laabteen Ibraahin iyo sidoo kale gabadhii horaan ay kala tageen Esther Korlibaax. waxaa sidoo kale dadku ay lahaayeen talow ma gabadhiisa ayuu soo booqday oo uu xiisay. laga yaabay in su'aalahaas aad isweydiinayso, laakiinse arrinta ugu badan ee dadku badi ay tilmaamayaan midda saxda ahna waa in labadooda marka laga tago in Ibraahin uu u xiisay aragtida gabadhiisa oo ay u dhashay Esther Korlibaax oo horaan ay kala tageen labadooda. waxaa sidoo kale dadka badi ay leeyihiin waxa arrintan ay ula jeedaan in barahooda TikTok ay ku kala kaciyaan in mar kale dadkan ay tusaan inay noqdeen laba qof oo dib u kulmay ama is arkay amaba mar kale xiriirkooda dib u soo celin kara.